إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم حارست استد قف أيا ku geeriyooday halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Beer iyo Yuroobe oo ka tirsan gobolka Togdheer shilkan sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa ka dambeeyay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kala ah nooca loo yaqaan booyada iyo gaari ay leedahay shirkadda bixin ee u kala gooshta Puntland iyo Somaliland waxaana dhimashadii iyo dhaawacii la soo gaarsiiyay isbitaalka weyne magaalada Burco waxaana ka warbixiyay dhimashadani iyo dhaawacan agaasimaha isbitaalka Cabdi Suudi taliyaha qaybta bilayska Axmed Cali Shabeel xildhibaan Mubarak Bidhi iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyagoona tacsi u diray dhammaan shacbi weynaha reer Somaliland eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen marxuumiintani وإنا إلى راجعون waxa isbitaalka Burco lagu soo gaarsiiyay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Burco halay 7 qof oo dhintay iyo 3 dhaawac ah marka dhaawacina soo gaaray mid kamid iminku ku geeriyay isbitaalka magaalada Burco laakiin dhimashada anaga waxa nagu soo gaadhay isbitaalka 7 dhimasho labada dhaawac ee noo yaala mid xaaladiisu waa culustay midna xaaladiisu aad bay wanaagsan tahay marka ugu horreyn waxa ka tacsidanaya eheladii iyo qaraabadii iyo qaranka Somaliland ay ka dhinteen dadkaasi guud ahaan waxaan iyagana la ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay waxaan leeyahay iyagana ha caafiyo halkan waxa soo gaaray baabuur booyada oo Burco ka baxay iyo shirkadda bixin bas ay leedahay oo ilaa 10 qof saareed ayaa isku dhacay Yuroobe iyo Beer dhexdooda waliba xagga beereed u dhow waxa khasaaruhu noqdo waa dhimasho ah iyo mid imika isbitaalka ku dhintay waa 8 labana waa dhaawac ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay samiriyo iimaan horta ka siiyo eheladii dadka halka ku geeriyooday inta dhaawacana in ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo runtii dhacay shil aad iyo aad runtii u naxdin badan dhimashadu ilaa hadda imika waa 8 iyo labada dhaawac ilaahay waxaanu ka baryaynaa in inta dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay u sahlo waxa ka dhacay magaalada Beer dusheeda shil ay sababeen laba gaari oo gaari booyada iyo gaari basaskan la yiraahdo bixina shilka waxa ku dhaawacmay laba qof waxaana ku nafwaayay 8 qof dadkaasu dhintay waqtigoodii bay dhinteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdawso ka waraabiyo ehelkoodii asxaabtoodii iyo dhammaan dadkana inuu ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo inta dhaawacan oo laba ah oo runtii dhaawacoodu aanu aad u cuslayn iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu sacbo malaa'ikeed oo mariyo oo dhaawacoodu u sahlo waxaan jeclay halkan inaan uga jeediyo baaq gaadiidleyda oo aan leenahay war runtii hal la taxadiro hadday tahay basaska dadka sida iyo hadday kawaalida xamuulka tahay iyo hadday kuwa magaalada gudaheeda ka shaqeynaya atiyo kuwa taraagaaba darawaliinta waxaan kula dardaarmaynaa inay taxadiraan wadista gaariga ka taxadiraan gaadiidka ka hormaraya ka taxadiraan nafaha saaran ee ay mas'uulka ka yihiin inay ilaaliyaan darawal kastaaba ayaa la Cabdullaahi Jaamac telefishinka caalamiga SBC TV magaalada Burco.